السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة حرد هدي أنكور بحيو حرد واحد جرتا مدلحية 8 سنة قوبتا أي كتها الله وحويان قوب عديدية أو ير oo wax aan ka sii gadismaynin ama aan durug lahayn hadii aan loo iibinin rolka hareeraha inaga xiga oo imka iska iiba diskeeduna waa inta nadarkaysaan aqaladan hor joogno waxay la dhisay iyaga amuud bay la dhistay imikana dhis bay noo wadaan goor walba oo noo baahanana nimanka aad noogu dhagan nugul weeyaan hadda la oranayo naga taageero xagga dhibaatooyinka iyaga iyo baahiyaha iyaga waxa la waxay helaan bana way nala ag joogaan haday dhar tahay haday hanti tahay hadii ay way nala ag joogaan imikana waanu ka rajaynaynaa in inta ay ka badan noo qabtaan ardayda meesha ku xiraysan waxa weeyaan imika 9 dhow boqol iyo saaid bay marahaayeen inamadu markay waaweynaadaan ama qaar abayaala ku jiray kuwa abayaasha la waxa isku qaateen ma adoo aabalaad xarunta agoomaha ku dhex jiri sidii aad kaga tagi lahayd maad falowgeeda qabatid markaasay faraxumaadeen oo gacan dhaaf la yimaadeen oo jaadii sigaar bartay waan iska sii deyn bardaruun waxa la baruur qura baruur qurmisa inta kala qurmin lahaayeen badan baan sii deynay imikana cidiina loola yimaadaba waanu ka qabanaa shan kasto yar u badan yihiin inamada waaweyn waxay ka mid yihiin kuwa jaamacadaha ku jira secondary-ga ku jira qaar Hargeysa ka dhigta qaar jijiga ka dhigta qaar sheekh ka dhiganayay oo imika Hargeysa u soo wareegay jaamacadan gabilay kuwa dhigta ilaa 8 iyo 9 baa dhigta secondary-ga waxa ku jira dhowr iyo 10 baa imika ku jira inta kale waxay dhigataa hoose dhexe awal bareefaday ku jireen bareefadadii iyo ardaydiina way akhlaaqad xumaadeen inankii aan miisaankiisu iscelinaynin in hadda suqmaadka u soo inaynin oo dhan waan ka joojinay maadaama ardaydii khalkhal gashay oo ardaydii akhlaaqad xumaadeen silsilada makiinada ku gurtaan ay dadka ku dilaan dariiqada waan ka joojinay bareefadkii waxaan ugu bedelay bareefadkii taxfiidka quraanka marka iska wanaagsan yihiin raashinka ina Omar baa aad u siiyay nasiya shan kasto imika sonkortii iyo daqiiqdii naga dhiman yihiin ina Omar baa nasiya bari dhowna uu nasiya laakiin ninkii furin kala haayo loo dubi jiray baanu iskaga qaan bixinay intii aan daqiiq noo keenay uu noo yaala raashinka kale dadka ka shaqeeya shaqaaluhu waxa weeyaan 8 qof 8 qofna waxa weeyaan waxa guna yar siiya dawladda hoose meel kale waxba kama helaan wasaaraddu waxay tiri dhowr sanadood samsam joogtay ma hayo lacag waashmaan iyo kariye lacagtood ma hayo kolkaas asay dawladda hoose guna yar u siisaa gunahaasina uu ku yar yahay oo dad xaasas la weeyaan oo kulli uu ku yar yahay shan kastay bari dhow biiriyeen way 400 kun uga dhigeen haddana baahida bilaadmiga kulliida intaas ma daboolayso qof qoys loo reer loo imika midkii waashmaanka ahaa kooligu naga taga oo kooligu ku jira wuxuu noo yimaadaa 4 galabnimo markuu kooliga ka soo baxo buuna guursado gurigiisa inuu seexdo doonaya goor walba uu nabarya waan ku bedelaynaa baanu dhaafo halkan kuma gelay sida iska nabad gal ala ay xaal meeshu waa caynka oo iska wanaagsan yihiin ardaydu caafimaadkoodu wuu wanaagsan yahay shan kasto ay magaalada ka yar fog yihiin gaadhina aan lahayn oo ka xumadu qabato caawa hurdada ama shuban ku dhaco ay adag tahay sida gaadhi loogu helo dhakhtar loo gaarsiiya oo u baahan yihiin ama gaadhi loo helo ama farmasiin loo helo munadamada waanu la tagnay farmasiiga waanu la tagnay manhal waanu la tagnay farmasiiga cid walba dawladda waanu la tagnay farmasiiga wali noomu suuro galin farmasiigi cidii noo sameyn lahayd waayo dawadii haday aqalka ku dhex taaliyo haday meel masaafo ah ku jirto way ku kala dhowdahay intaas un baa nagu adag waxba ma qabnay imikana waxay noo dhisayaan meel store oo hadii la oranayo aanu antida kala dhigana ama aanu baahi u qabno marka waad salaamantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.